daawada kusoo dhawaw Garabla TV oo aad uga barateen barnaamijyo xiiso leh. barnaamijkan waxaanu ku soo qaadan doonaa talooyin aan u jeedinayno madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya. talooyinkaasi oo aan u jeedinayno madaxweynaha waxa ay tahay kow mudane madaxweyne waan ku hambalyeynaa hambalyo kadib waxaanu jecelnahay in aanu aantii talooyin ku siino. talooyinkaas waxa ay yihiin xildhibaanada soo baxay sanadan waad la socotaa qaabka ay ku soo baxeen. ulajeedka inta badan loo soo xushay waxa ay ahayd in ay ugu shubaan madaxweynihii guuldareystay ee adiga kula tartamayay maxamed cabdulaahi farmaajo. nasiib wanaag waxaa ku soo baxday si dadka oo dhan ay aada ugu riyaaqeen. waxaana kuu rajaynaynaa in aad ka midho dhaliso hankaaga dowladnimada aad ka leedahay iyo in aad Soomaaliya gaarsiisid heer ay cagaheeda si toos ah ugu istaagto. haddaba sidaas daraaddeed xildhibaanada dowladda federaalka hadda ku jira baarlamaanka iyo sanadka waad ogtahay qaabka ay ku soo baxeen in aysan haysan kalsoonida beelaha ay sheeganayaan in ay matalaan. kow waxaanu kaa codsanaynaa xildhibaanadan in aysan noqonin ama aysan ka mid noqonin golaha wasiirada dowladda federaalka Soomaaliya si awoodooda loo xanibo. taas waxa ay keenaysaa in dadka kale ay fursad u helaan in ay noqdaan wasiiro beelahana dadka ku jira ay iskaga dhex arkaan. taasi waxa ay fududeynaysaa in aad yeelato dad aada badan oo talooyin ku siiya ama wax kula wada halka ay xildhibaanada keligood noqon lahaayeen wasiiro. waa talada koowaad aan ku siinayno. labo in aad talooyinka ay kuula imaanayaan xildhibaanada in aad xadido maadaama aysan ahayn dad rabitaanka ku yimid beelahooda. haddii ay talooyin ku keenayaanna in aad shuruudo ku xirto. shuruudahaasi waxaa ka mid ah ugu yaraan in ay la yimaadaan 2 xubin guddi ama madax dhaqameed oo ka tirsan beeshooda. sababtaasna waxaan u leeyahay maadaama aysan haysan kalsoonida beeshooda in ay labadaasi xubin ay la yimaadaan si tala baahsan oo beesha aad u hesho. taasna aad ku qaadato go-aanka aad gaari lahayd haddii ay noqon lahayd in xuquuqda ay beelaha ku leeyihiin dowladda federaalka Soomaaliya aad wax ka tala ka siiso. 3 in maamulka gobolka Banaadir la joojiyo shaqada uu hayo hadda lana bilaabo in doorasho loo furo dadka degan gobolka Banaadir si ay u doortaan gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo duqa Muqdisho. taasi waxa ay saamaxaysaa in ay ka hana qaado gobolka Banaadir dimuqraadiyadda dadka deganna ay u helaan cod ay ku doortaan qofka noqonaya gudoomiyaha gobolka Banaadir. taasi waxa oo kale ay saamaxaysaa in gobolada kale ee wadanka ay ka tusaale qaataan magaalada Muqdisho iyo gobolka Banaadir taasoo birmad ka dhigi doonta ama horseedka gobolada oo laga tusaale qaato. haddaba madaxweyne waxaan ku rajaynaynaa insha Allah in aad talooyinkaasi aad qaadan doonto. intaasi waxaan kusoo ileynaynaa taladii aan u jeedinaynay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud. daawadayaal saaxiibayaal intaanu hawada ku kulmayno barnaamijkan barnaamij lamid ah waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo. bye bye.